بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين إلهي بمهد إسكالة تبارك وتعالى ولا ليال وحان مركو هريدنكو سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nabadgelyo iyo naxariis iyo barakooyin ka timi xagga Allah korkiina ha ahaato waa ducada Allah noo aqbalo tabaaraka wa tacaala waxaan rabaa mowduuca aan rabo inaan ka hadlo wuxuu ku saabsiisan yahay mustaqbalka islaamka mustaqbalka diinteena wanaagsan ee islaamka sida aynu ogsoonahay diintan weyn ee islaamka ilaahay wuxuu inoogu baaqayaa oo quraanka mar walba inoogu sheegaya in ay ayadu tahay ta guuleysanaysa iyo dadka haysta diintan ee muslimiinta mutaqiinta ah ay ayagu yihiin kuwa cirib dambeedka wanaagsan iyo masiirkoodu uu fiicnaanayo wal aaqibatu lil muttaqin wala tilmaamaya cirib dambeedka iyo masiirka wanaagsan waxa iska leh mutaqiinta inta alla ka dhowrsata ama ilaahay ka baqata azza wa jalla mustaqbalka islaamka hadaba si aynu uga warramno waxaan rabaa inaan daliilo cadcad iyo xujooyin aynu bayaamino oo diinteenu ay noo sheegayso quraan iyo sunno ah kadibna waxaan rabaa in aan ka hadlo waaqica maanta ay dadka muslimiintu ay ku nool yihiin wax kamid aan soo qaato kadibna aan ka warramo oo aynu isbarbar dhigno waaqican aynu la noolnahay iyo islaamkii hore markuu dhalanayay iyo muddada zamanka dheer ee uu soo jiray wixii dhacay inagoo koobayna kadibna waxaynu saadaalinaynaa mustaqbalka islaamku siduu u ekaan doono iyo in ay yihiin muslimiintu ama dadka islaamka ah ee alla ka baqa cidda markaa gacanta sare yeelan doonta nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiis cajiiba wuxuu ku yidhi ina allaha zawa liya alarda ilaahay wuxuu ii jamciyey oo ii keenay oo ii soo kulmiyey dhulkii oo dhan فرأيت مشارقها ومغاربها وحان أركي دولكي بريجيدا إيا بيت كيدا قرح دعيدا إيا مارتا قرح سوبحيدا بوالي توصي وإن ملك أمتي لا يبلغ ما زوالي منها بقرتو يدا إيا ملكي أمدايدو وحي قاديسا دولكي إيا أرلدي ألا إي كل ميايا إي جمعياي أردن بي أمدايدو بقرتو يدا دو قاديسا حديث كلو إسنا صحيح مسلم ككويالا ayaa rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wa sallam la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wan-nahar diintani waxay gaadhaysaa meel qoraxdu ay ka dhacdo oo habeennimo ay ku galabaysato iyo meel maalinimo ku subaxaysato intaba waa gaadhaya markaasay wuxuu dhahay nabigu walaa yatruku allahu bayta madarin walaa wabarin ilaa adkhalahu allahu hada addiin ilaahay ka tegi maayo guri markaa ku yaala magaalo iyo mid miyi iyo baadiye ku yaala ka tegi maayo mid walba ilaahay diintan uu gelinayaa bicizi casiisin aw bidulli daliin cizan yucizu allahu bihi alislaam wadillan yudillu allahu bihi alkufra cizi ayuu ilaahay ku gelinayaa oo ilaahay uu ku cisaynayo oo uu ku sharfayo islaamnimada iyo diintan uu ku sharfayo iyo kuwa uu ilaahay ku dulaynayo oo ah dulinimada kufriga iyo gaalnimada buu tilmaamay aayad kale oo kamida min dhikri alxakiim ilaaha weyn ee xikmadda leh kalaamkiisa kamida buu wuxuu alla ballan qaadayaa in diinta nebi maxamed ay tahay diinta ka sarreynaysa dhammaan diimaha dunida yaalla هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إلهي وحو لي تبارك وتعالى إصابة الله أيا كي صدري رسول كيسا محال الله صدري ليظهره على الدين كله سي حق بالله صدري سي دين تيسو أي أغسر ريسو أغسر مرتو دمان ديمها الدنيا يالا أردن gaalku hadduu doono ama mushrigu hadduu doono haba karaahiyeysto haba nacabe aayadaasi 3 jeer bay soo noqonaysaa mar waxay ku soo noqonaysaa suuratu saf
mar waxay ku soo noqonaysaa suuratul fatxi marna waxay ku soo noqonaysaa suuratu tawba oo intaba alla leeyahay rasuulkan xaqa aan u soo diray waxaan u soo diray in diintiisu ay ka adkaato oo ay ka gacan sarrayso dhammaan diimaha dunida yaalla hadday tahay yahuudda iyo kiristaanka iyo hadday tahay hinduu iyo buurish iyo hadday yihiin dad markaa mulxidiin oo atheist ah iyo kuwa agnostic ah nooc walba diintan ayaa ka xujo weyn oo ka daliil weyn oo mantiq iyo ka caqli weyn xagga caqliga waxa gelaya adkaanta iyo maaragtay xoogana yadaa mar walba ka xoog weyn buu rabbi tilmaamaya kuwaasi waa daliilo cadcad iyo xujooyin cadcad oo ilaahay ku bayaaminayo in mustaqbalka islaamku uu leeyahay iyo diinta islaamku mar walba ay tahay taliibaanaysa guulaysanaysa weeyaan haddaba si aynu u saadaalino mustaqbalka islaamka waxa aynu u baahannahay inaynu fahamno waaqica maanta aynu la noolnahay ee aynu arkayniyo caalamka islaamku siduu u eegyahay inaynu isla fahamna baa loo baahan markaynu waaqican maanta isla eegno waxaynu dib bal ugu noqonaynaa taariikhda ayaynu dib ugu noqonaynaa waayo taariikhdu waxa laga faa'iido waxaa ka mid ah waa goldoloolooyinka aada leedahay sida aada u awdaysa baad ka faa'iidaysa taariikhda waxa kaloo laga faa'iida waa cibro qaadasho waayo waaqica maanta aynu noolnahay ama wax mustaqbalka la noolaan doono hadda ka hor unbay dhaceen dhacdo kastoo iminka soconaysa waa midun hadda ka hor dhacday sidaa awgeed baa mahmahdu waa tan tidhaahda history repeat itself taariikhdu sideedaba way isi soo celcelisaa taariikhu yacuudu nafsah isagunbaa dib isu soo celiyo waa buugga xaashadaha badan ka kooban dhacdada iminka dhacaysa hadda ka hor bay dhacday natiijay ku dhammaatay maxsuul iyo risalti baa ka soo baxay hadda ka hor sidii ay ugu dhammaatay bay tanna ugu dhammaanaysaa saa awgeed baa insaanka maskaxda iyo caqliga alla uu siiyey waxaa ka mid a in uu marka uu ogaado waxa uu ku nool yahay taariikhdeedana uu dib u baadho inuu saadaalin karo waxaan aada la nooshahay natiijadeedu sida u ekaanayso waxaynu isla eegaynaa bal caalamka islaamka iyo heerka uu maraya maanta caalamka islaamka dhibaatooyinka haysta baanu eegaynaa inaga oo dhibaatooyin badan baa haystee wax ka mida tilmaami doona waxa haysta caalamka islaamka oo aad idinkuna ila qirsantihiin waa khilaaf iyo tafaraaruq aada iyo aada u ballaadhan sidaan ogsoonnahay diinta islaamku markii ay soo degtay waxa ilaahayna amrayaa wactasimuu bixablillaah war ku midooba xadhigga alle baa layna amraya hal amiir iyo hal madaxweyne yeeshabaa diintu ayna amraysa hal khaliifa idin taliya baa layna amraya hal dowlad yeeshabaa diintu aynoo sheegaysa maanta haddaba waaqica aynu la noolnahay imise dowladooda islaama baa jira oo islaam iyo muslimnimo sheegta ciidda iyo tiradaasi ka badan yihin haddaba kuwa laftigoodii baa isi sii khilaafaya oo khilaafka iyo tafaraaruqu meel walba waa ku jira shacabka iyo dowladdaa iskhilaafsan qoyskiibaa iskhilaafsan qabaa'iladiibaa iskhilaafsan qarankiibaa iskhilaafsan waa khilaaf waa mushkilad khilaaf ayayna haysatay waxaa kaloo ina haysta wax la idhaha takhalluf oo ah dibudhac dhinac walba ah oo horumar la-aana halka keyrkeen ama dadka cadowga ku ah islaamku maanta ay heer ka marayaan dunidan iyo horumar ay ka gaadheen waxaa kaloona haysto dhibaatooyinka waaweyn ka mid a jahli iyo aqoon darra ayna haysata ku saabsiisan xagga diinta iyo mid ku saabsiisan xagga culumta maadiga ahba mid walba jahli baa inaga haysta waxaa kaloo caalamka islaamka haysta fasaad oo ah musuq maasuq iyo corrupt inuu yahay sidaan ogsoonnahay wadanka Soomaaliya sanad walba wuxuu ku guuleystaa dalka adduunka ugu musuq maasuqa badan marka dadkeena ama dadkii madaxda ahaa ee dawladda sheeganay waa musuq maasuq waa laaluush waa wax istaba marina waa danayste waa calooshiisa u shaqayste danta guud wax ka shaqeynaya waa yariye saa awgeed baa sanad walba waxaynu ku guuleysanaynaa wadanka iyo dadka ugu musuq maasuqa badan le caalamka oo dhan arlada alla abuuray dalka ugu musuq maasuqa badan ee ugu fasaadka badan wal ciyaadu billah waxa kaloo ina haysta walaalayaal oo dhibaatooyin waaweyn ah mid akhlaaq xumo anshax xumo dhaqan xumo ina haysta waxayna haysta walaalayaal qofkii muslimka ahaa waxa weeyaan seriously uma shaqeynay si jiddiya ay ku jirto macnaha si ay ka dhab tahay uma shaqeynay sida awgeed waxa soo baxay ihsaa'iyat ama statistics oo lagu sheegay waa tirakoob lagu sheegay caalamka islaamka
qofku marka uu shaqo tago ee goob shaqo uu tago ama xafiis shaqo uu tago 8 saacadood halkii loogu talagalay inuu ka shaqeeyo wuxuu shaqeeyaa si guud marka loo tilmaamo 15 daqiiqadood waa qofkii lagu yiri 8 saacadood waa inaad shaqeysaa ayaa 15 daqiiqadood ka shaqeynaya oo ah generally sida guud ee maaragtay ka dhacda caalamka islaamka waaye waqtigu halku kaga lumaya marka hore uu shaqada tagayo uu si habsaamiyo waa daahaya waa kow marka uu ka soo rawaxayana wuu soo qadimaya oo waqtigiisa qayb badani hadsan tahay buu ka imanay goobta shaqada markuu joogana waa maruu telefoon ku hadlayo iyo maruu sheekaynayo iyo maruu haasaawayo iyo maruu joornaal akhrinayo iyo maruu koob shaaha cabayo way dabadeedna waxay dhaheen statistics-kaasi iyo tirakoobkaasi caalamka islaamka dadka degan waxay shaqeeyaan 15 daqiiqadood iyadoo la rabay in 8 saacadood shaqeeyaan marka waxay naga maqan serious shaqada wax naga dhaba ma jiro wax walba waxa weeyaan musuqib agalaya musuqmaasuqi waxayna haysta caafimaad daro oo waxa weeyaan caalamka islaamka qofku maanta markuu xanuusto ama qof xoolo haysta maanta markuu xanuusto ma wuxuu dhahaa Suuriya iyo mise Ciraaq iyo mise Yemen iyo mise Soomaaliya mise waxa digaysa Algeria waa maya wadamada ugu caafimaadka liita ayaynu nahay waxaanayna haysta oo dhibaato weyn inaga haysata wax soo saar ma lihin warshado ma lihin waa dhibaato halka qeyrkeen maanta ay ku tartamayaan waxa weeyaan hawada sare dawladuhu maanta markay isleenayaan dayax gacmeed baan laga soo riday baad maqlaysaa waxaad maqlaysaa dawladda soo sheeganaysa in dayaxa ay dhulka hebel la siiyay oo loo hibeeyay ninka la yiraahdo magaciisa hebel iyo heblaayo dayaxa ayaa la qaybsaday xidigii Mars la dhihi jiray waa lagu kala tagay Jupiter hadalkeeda bada Neptune isagana iskaba dhaaf xidigihii dunida la kala qaybsado ninba qayb baa la siiyay subhanallah annagana waxaana haysata wax soo saar la'aan waxa kale oo haysto dhibaato weyn oo jirta waxaana lagaga soo duulay xagga maskaxda ghazwul fikri waxaanay dhahan oo waa duulaan maskaxeed duulaanka maskaxeed baa waxaana laga dhaadhiciyay oo aan rumaysanay oo aanu aaminay in wiilka yar ee reer Yurubka ah ama gabadha yar ee reer Yurubka ah ama reer galbeedka ah inay naga maskax badan tahay oo naga aqoon badan tahay oo naga karti badan tahay baanu aaminay dabadeedna markii aanu aaminay waxa dameer dhaan raacday baanu noqonayo wixii kaste ay la yimaadaan baanu ku dayanay waa mushkilad haysata dhalinyarada caalamka islaamka haysata weeyaan waxaasi waa waaqic aynu la nooleyn oo ah waaqicun mariir waa waaqic qaraad weeyaan siyaasadda hadalkeeda bada kama hadli karno qof walba wuxuu ka marxaati kacaya in caalamka islaamku uu yahay siyaasiyiinta ugu xun adduunyada waa dictatorro waa inqilaabiyiin inqilaab ku qabsanaya waa dad markaa waxa weeyaan gacan ka hadal iyo maaragtay gacmo dhiig leh ku qabsanaya maaragtay xukunka iyo powerka iyo awoodda iyo saldanada subhanallah la ilaaha illa allah waa mushkilada haysata caalamka islaamka marka haddaba walaalayaal haddii taasi waaqica aynu maanta ku noolnahay ay tahay oo aan maaragtay dhibta jirtaan loo kala hadhin xukuumad iyo dawlad iyo shacab iyo rayid intuba mid walba dhibaata ay haysato oo dib u dhacaasi uuna haysto bal aynu dib u noqon caalamka islaamka si aynu dib ugu noqono bal taariikhda islaamka halkii ay ka soo bilaabantay iyo sidii uu guulaheedu ay ku gaadhay guulaha waaweyn iyo xadaaradeeda iyo ilbaxnimadeedu sidii ay ku kobacday iyo sida suurtagal ay u tahay inay mar labaad dib u soo noqoto markaynu inagu fadhiga ka kacno weey sidaan ogsoonahay walaalayaal ilbaxnimo kasta ama xadaarad kasta oo dunidan soo martay waxay u bilaabmataa sida ilmaha yar u dhasho oo kale ayay u bilaabmataa ilmaha yar markuu dhasho waxa weeyaan uu gurguurtaa hadhow tole fadhigu bartaa waa gurguurtaa marka dambe uu socdaa markuu raad dhaqaajiyo kadibna waa xoogeystaa dabadeedna nin dhalinyaro buu noqdaa kadibna oday weyn buu noqdaa waa gradually waa qaab tartiiba taariikhda hadaad baadho xadaarad kasta iyo ilbaxnimo kasta qaabkaas u kortay saasay u kortay maray haddaan tusaale soo qaadano laba dawladood baa jiray xilligii islaamku uu bilowga ahaa oo ahaa super power iyo awoodda ka talisa dunida marka xilliga jirtay labada dawladood waxa la kala dhihi jiray Persian oo ah Farisiyiin iyo dawladii loo yaqaanay Roomaanka mid walba kumanaan sanadood bay jirtay مثلا haddaynu ku bilowno
qoladan la yidhaahdo Persianka ama Farisiyiintu waxa ay tirsanayaan 5,000 oo sanadood inay jireen. dowladoodii ugu dambeysay waxa loo yaqaanay Sasaniyiin oo 2,000 oo sanadood bay iska soo dhaxlayeen boqortooyada. waxay ahaayeen dad super power ah. Roomaanku saasoo kale iyaguna waxay ahaayeen dowlad kumanaan sanadood jirtay oo markaa iyaduna dunida ka taliso oo powerful oo super power markaa ka ahaa. Islaamku haddaba markii uu dhashay ee islaamkii maaragtay Ilaahay Qur'aan soo dejiyay waxyi oo rasuulku ummadda uu gaarsiiyay kadibna rasuulku uu geeriyooday salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi ayaa waxa fooda isla galay muslimiintii iyo labadii dowladood ee dunida ugu waaweynaa. dowladda la yiraahdo Farisiyiinta waxa madax u ahaa boqorro la yiraahdo Kisra ibn Hurmuz. powerful bay ahayn, niman awood leh bay ahayn, ciidamadoodu malaayiin bay gaadhayeen. waxay ahaayeen xagga dhaqaalaha markaan tilmaamno dowladda ugu dhaqaalaha sarreysa bay ahayn adduunka. markaynu ka hadlayno xagga militariga iyo ciidanka ugu wanaagsan adduunka ayay lahaayeen. marka ka warramayna qalabka ciidamada waxay haysteen hubkii ugu casrisanaa xilliga ayagoo helaya hubka Roomaanka iyo hubka Hindiya iyo hubka ayagu samaystaan bay intaba helayeen. wax soo saarka iyo beeraha iyo khayraadka dabiiciga ah halka uu sareysay kaga jireen adduunka. cilmiga iyo waxbarashada iyo arts iyo science meeshii uu sareysay kaga jireen iyo tiknoolajiyada xilliga iyo casriga iyo zamanka. caafimaadka iyo aqoonta iyagun baa loo doonan jiray. khilaaf iyo tafaraaruq dhexdooda ahna muu jirine nin kaliya ayaa boqor u ahaa oo ay ku midaysnaayeen. wuxuu ka talinaya boqorka la yiraahdo Kisra wadankan iminka la yiraahdo Iran iyo wadankan la yiraahdo Iraq ilaa iyo Hindiya ayuu dhankan ka gaadhay. xaggan barigana Pakistan iyo Uzbekistan iyo aagaas oo dhan buu ka gaadhay. dhulka Carbeedna waa soo gaadhay. dhulka Shaamna qaybo badan buu ka qabsaday. Yamanna wuu xukumi jiray. waa adduunkii xilliga la yaqaanay qaybihii ugu muhiimsanaay oo dhan dowladda Farisiyiinta xukumi jirtay. subhanallah. ayadoo haddaba ay taasi jirto ayaa ciidamada muslimiintu ay weerar ku qaadeen dowladda. hal goobtii kasta ee ciidan muslimiintu ay yimaadaan waxa weeye 10 jeer ama 15 jeer ama 20 jeer ciidan ka badan bay dowladdaasi keenaysay. ciidanka ay keenaysana waa koox ama waa guuto yar oo kamida ciidamadeeda. bal aynu tusaale soo qaadano sanadkii 12aad ee hijriyada markii ay taariikhdu mareysay waxa ummadda muslimiinta madax u ahaa oo khaliif u ahaa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr as-Siddiq ayaa waxa u yimi ninka la yiraahdo Al-Muthanna ibn Harith ash-Shaybani oo saxaabi nabi ahaa ayaa u yimi oo ka dalbaday inuu weerar ku qaado dowladda Farisiyiinta. waa dowladda aynu ka warramayna inay tahay super power ayuu yiri aniga igu daaniga iyo qabiilkayga iyo reerkayga ayaa la dagaalamayna reer Al-Shayban haddaanu nahay. Abu Bakr waa u saxeexay cidii u horeysay ee markaa dhaqaaqday dowladda weerar ku qaadaa wuxuu ahaa Al-Muthanna ibn Harith ash-Shaybani oo weerarka ku qaaday dalka la yiraahdo Iraq waqooyigiisa. kadibna Abu Bakr wuxuu diray Ilaahay raallaha ka ahaadee Khalid bin Walid buu ciidan u dhiibay Sayfullahi al-Masluul seeftii Ilaahay ee galka la'ayd wuxuuna Khalid weerarusna ku qaaday koonfurta dalka Iraq. haddaba waxa cajiib ah oo la yaab leh dagaal kasta oo ay dowladda Farisiyiintu ay la galaan muslimiinta 300,000 200,000 ayaa markaa goobta dagaalka iman jirtay. halka muslimiinta ciidankoodu ay yihiin 4,000 ama 3,000 markay ugu badan yihiin ay 10,000 yihiin. si dhaqso leh ayuu Khalid ku safeeyay oo uu ku soo afjaray koonfurta dalka Iraq oo dhan. halka Muthanna ibn Harith ash-Shaybani isaga maaragtay la hakiyay oo la joojiyay. sababtuna waxay ahayd kow militariga Khalid bin Walid radiyallahu anhu iyo marka Al-Muthanna ibn Harith ash-Shaybani isku mid ma yahayn. waa kow waa qodob meesha ku jira. talabaadna waxa weeyaan waqooyiga iyo koonfurtuna way kala duwanaayeen xagga duruufta. waxa dhacday haddaba Khalid bin Walid dowladdii sida u xooga weynayd ee militariga lahayd ee ciidanka cid meesha doonta ka dalbanaysay ayuu bilayar gudahooda uu ku qabsaday oo uu ku tagay magaalada Hira oo ahayd caasimadii Carabta ee ka deganeed dhulka Iraq. waa arrin cajaayib.
si aad u ogsoonaato dowladdaasi siday super power u ahayd oo awoodda u lahayd waxaan kaa siinayaa hal tusaale oo cajiib oo la yaab leh xilligii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu waraaqaha u dirayay boqorada adduunka oo dhan ayaa warqad wuxuu u diray boqorkii dowladda farisiyiinta kisra loo yaqaanay warqadda wuxuu ku qoray min muxamedin rasuulillah ilaa kisra cadiimi ilaa kisra cadiimi faris warqadani waxay ka timi muxamed oo rasuulkii alla ah waxay ku socotaa boqorkii kisra oo ah madaxweynaha dowladda farisiyiinta warqadii markuu akhriyay kisra ayaa wuxuu yidhi muxuu ahaa qofkan magacayga ka hormariyey kiisa ka hormariyay warqadii buu jeexjeex dabadeedna wuxuu yidhi baro saabkiisii ama guddoomiyihiisii matalayay ee fadhiya dhulka yamaneed ayuu amray inuu laba askari uu diro laba askar inuu kasoo diro dhulka yaman oo feedho waaweyn oo markaa ninkaa carbeed ee dhulka baadiyaha jooga soo qabta oo uu keena bal hadda u fiirso awoodiisa markaa ninkaasi siduu u kibrayay sidii buu yeelay ninkii yaman u fadhiyay oo baadaan la dhihi jiray baa soo diray laba nin oo xoog waaweyn nebi maxamed bay labadii nin u yimaadeen fariintiina nebi maxamed bay gaadhay nebigu wuu habaaray wuxuu ihi mazaqa allahu mulkah ilaahay isna boqortooyadiisa ha jarjaro siduu waraqadii rasuulka u jeexjeexay ilaahay ha u jarjaro allana waa u jarjarayba oo ducadii iyo habaarkaa nebigu uu habaarayba ku dhacay labadii nin buu nebiga u yimi oo yidhi waana loo kaa soo diray oo boqorkayagiibaa noo kaa soo dirayna soo raac wuxuu ku yidhi berri igu soo noqda berri markay ku soo noqdeen buu wuxuu rasuulku ku yidhi qatala rabbii rabbakum rabbigay baa dilay rabbigiinii rabbigay oo allah ah ayaa wuxuu dilay rabbigiinii aada caabudi jirteen subxaana allah laa ilaaha ila allah arrintiibaa fajicise ku noqoto ma ninkii kisra ee iminka idin soo dirayay baa dhintay waa orday yaman bay ku noqdeen ninkii la dhihi jiray baadaan bay warkii u sheegeen baadaan nin caqli badan buu ahaa wuxuu yidhi maxamed warka noocaasa ilan waxa weye warku berigii hore internet iyo telefoonna iyo waxa noocaasa may jiri jirine mudday qaadan jirtay iyo bile warkaasi hadduu war saxa noqdo oo war jira uu noqdo maxamed waa rasuul buu yidhi warkiibaa markii dambe u yimi ninkii la dhihi jiray kisra waa la dilay oo inankiisiibaa dilay yasdajar ahaa ayaa markaa meeshiina qabsaday baadaan nin caqli badan buu ahayo wuxuu ihi wallaahi maxamed waa rasuul weeye wuuna islaamay yamanna waxay noqotay dowlad islaamiya ila isagaa haystee nebiguna waa u daayay sala allahu calayhi wasalam dabadeedna sidaasay dhulka yamaneed ay dowlad muslimo ku noqoto oo ka tirsan oo taabacsan dowladdii rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka tusaalahan waxaynu usoo qaadanay bal dowladdaasi sida ay u ahayd powerful affairs awooddeedu heerku gaadhay eeg maxaa dhacay markaa maxaa dhacay oo muddo bilo yar gudahooda ah uu khaalid u qabsaday ciraaq waa arrin cajaayib oo la yaab leh kadib waxaa dhacday dagaalkii loo yaqaanay alqadisiya dagaalka alqadisiya wuxuu dhacay 15 sanadkii 15aad ee hijriyada dagaalka markaa waxaa hogaaminayay saxaabigii nebiga sacad ibn abi waqaas khaalu rasuulillah nebiga abtiga uu ahaa sacad ayaa hogaaminayay dagaalkaasina lafta dhabarkuu kala jebiyey dowladdii farisiyiinta waa dagaalkii baabi'iyey ee kama dambaysta ahaa kamanay soo kabanin dib oo u dambaysa kamay soo kaban waxaana la qabsaday caasimadii uu boqorkaasi fadhihi jiray ee loo yaqaanay almadaa'in ee uu ka dhisnaa albaytul abyad guriga cad ayay muslimiintu qabsadeen waa muddo intee leeg waa muddo 3 sannadood gudahooda weeye sanadkii 12aad ee hijriyada ayuu abubakar bilaabay inuu dowladda ku duulo sanadkii 15aadna gebi ahaan tee dowladda 5000 sannadood tirsanaysa ee powerful iyo super powerka ahayd waa lagu soo gabagabay maxaa dhacay waa arrin cajaayib oo la yaab leh maxaa keenay dowlad awoodda inta la eego goob kasto dagaal kumaan kun boqolaal kun keenaysa dagaal inay mar qura ay sida u dunto waa arrin cajiib oo loo baahan yahay in la isweydiiyo waxa kale oo tusaale kale inoogu filan dowladdii kale loo yaqaanay Roomaanka oo ahayd iyaduna dowladda labaad ee ugu xoog weyn la adduunka xilliga oo ahayd ta kaliya ee la tartanta Farisiyiinta dowladdaasi waxa iyadana boqor u ahaa nin qaysar la dhaho qayaasira raggaas madax u ahaan jiray dowladdaas qayaasirada la yiraahdo waa Roomaankee dunida qayb dhan bay haystaan dhulka Shaam bay haystaan Yurub bay haystaan
north africa haysta waqooyiga africa oo dhan bay haystaan 4 caasimadood bay dowladdiisu leedahay caasimad waa إيليا waxaa loo yaqaan magaalada Jerusalem oo Qudus ah waa magaalada Qudus waa caasimad Dimashq oo Suuriya ah caasimad labaad bay ahayd Istanbul oo ah Constantinople loo yaqaan xilliga caasimad bay ahayd Alexandria oo Masar ku taala caasimada afraad bay ahayd dunida oo dhan buu ka tirinaya Masar ilaa waqooyiga Afrika oo dhan Libya Algeria Morocco waxa soo dhan waxa haystay dowladda Roomaanka haysatay ayadana muslimiintu waxay weerar ku qaadeen sanadkii 12aad ee hijriyada yadana waxa weerarka ku qaaday Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda afar ciidan Abu Diray Abu Ubayda uu hogaaminay Abu Ubayda Amir ibn Jarrah Yazid ibn Abi Sufyan Shurahbil ibn Hasana iyo Amru ibn al-As afarta saxaabi baa afar ciidan oo kala duwan loo dhiibay mid wuxuu weerarayaa Falastiin midna Urdun midna markaa wax weeyaan Suuriya ayuu weerarayay kadib waxa yimi ciidankii markaa dawladda Roomaanka horta boqorkii loo yaqaanay Qaysarka markay ciidamada muslimiintu weerarka ku soo qaadayeen wuxuu joogay Iliya oo ah magaalada Qudus uu cararo Dimashq buu tagay haddana wuu ka firdhaday Dimashq oo Istanbul buu tagay marka ninka Qaysarka Hiraqal baa loo yaqaanay Hiraqal waxa la yidhi nin maskax badan buu ahaa xagga diinta ayuu aqoon u lahaayo markii uu arkay muslimiintu inay Suuriya soo weerarayaan kelmad buu yiri caan ah oo wuxuu yiri wadaacan ya Suuriya nabadgelyo dib u dambeysay soo arkimeen waxa dhacday afartii ciidan oo tiro yaro kooban qof saxaabi kastaba wuxuu watay tiro yaro kooban ciidamada waxa ka hor yimi ciidan markaa gaadhiya 345,000 oo ciidana waana dagaalkii Yarmouk loo yaqaanay ba dhacay waa 345,000 oo ciidamo oo kamida oo ah waliba hal guuto oo kamida guutooyinka ciidamada dawladda Roomaanka ayaa ka hortay markuu arkay Abu Bakr khatarta jirta Khalid buu ka kaxeeyay Ciraaq oo wuxuu u diray inuu tago ka qayb gala dagaalka loo yaqaan Yarmouk marka waa kii ku baxay safarkii cajaayibka ahaa ee la yaabka ahaa ee maaragtay aynu marar kale ka warrami doono hadda korna waa ka warramnayba dabadeedna wuxuu tagay marka waxa weeyaan Yarmouk buu tagay halkii goobtii dagaalka marka saxaabadii intii hogaamiyayaasha ahayd way kulmeen dabadeedna Khalid baa u soo jeediyay wuxuu yiri intii aynu nin walba uu ciidan hogaamin lahaa aynu ciidamadeena oo dhan isu geysano dabadeed markaynu isu geysano hal nin aynu maalinba mid ka dhigana madax Khalid baa maalintii u horeysay laga dhig kadibna markii dambe maalmihii ku xigana waxa dhacay Khalid oo aad u baa hawshan wadi karay adigu ahaw dagaalkii baa bilaamay waa dagaalkii Yarmouk ciidamada muslimiintu marka la isu geeyo oo si kasta loo badiyo 30,000 ma gaaraan halka gaaladu ay 345,000 oo ciidan ay ka yihiin subhanallah la ilaaha illa allah iyadoo goobtii dagaalka lagu jiro dagaalkii uu socdo ayaa warba yimi warkaasina wuxuu ahaa inuu dhintay khaliifkii muslimiinta oo ahaa Abu Bakr as-Siddiq oo xilkana la wareegay Sayyid Umar radiyallahu anhu arda isna Umarna uu casilay oo maaragtay jagadii uu ka qaaday Khalid bin Walid oo uu yiri askari kamida askarta dablayaasha ah oo kalun badlamid laakiin ciidan hogaamin maysid sababta uu casilay Umar ibn Khattab radiyallahu anhu cadaawad ka dhaxaysay isaga iyo Khalid ma jirin waayo Khalid iyo Umar ibn Khattab ehel iyo qaraabo sokiya ilmaabtiyaal baabay ahaayeen waxa uu casilay dadka ayaa ku fitnoobay oo waxay aamineenba aaminaad bay gaadhay ciidanka Khalid uu wato inaanu jabayninba dabadeedna uu casilay marka Abu Ubayda ayaa dagaalkii la wareegay ciidanka hogaaminteedii muslimiintii marka dagaalkii Yarmouk waxay jabiyeen gaaladii Roomaanka ay jabiyeen marka muslimiintii waxay ka adkaadeen oo ay jabiyeen nimankii Roomaanka ahaa meeday dawladii intaasoo 100,000 oo ciidan keenaysay meeday horumarkii iyo xadaaradii iyo ilbaxnimadii halkay aaday maxaa dhacay waay maxay mar qura u dumayaan sanadkii 14aad hijriyada dawladii Roomaanka waa la wada qabsaday sanadkii 15aad hijriyada dawladii Farisiyiinta waa la wada qabsaday how sida ku dhacday subhanallah la ilaaha illa allah tusaale kale aan soo qaadano
صحابي قال له عمرو بن العاص رضي الله عنه أيا وحو كدل بدي سيد عمر إلى هير عليها كهذا إن وقبصد دولك مصر ورومان كوي كتلينيين marka Masar waa dawlad xadaarad leh waa dawlad ilbaxnimo fog leh waa dawlad faraaciin iyo fircoon ka soo taliyeen iminkana dawladda haysata waa Roman oo Badriiq iyo Batrook waxa ka taliyeen iyo Maquqas waaya Umar ibn Khattab arintaas wuxuu yiri haynugu taabanin Amr ibn Aas wuu ku celceliyay وقال عمرو بن عاص وحو وتعيدا أفركنا أيوه ربا إنه مصر كو قبصده مصر نددك الدقن حلقة 2 مليون بيها هاين وحو يري عمر بن الخطاب هروس ورقد با انت هردو سعونيسا او مصر واد قبسانيسا إلا انت دانيقا وريقه لدونتو ودقاق عمرو بن عاص سوى أفركنا عيدا نوتا دبددنا يسوغو حدود أكتيدا مرة يبا وحا ويمي ورقد وسيدو فرنسيده كيمي حلقة إيامارة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرنسيده بوحو كورو عمرو بن العاص ورقدر وحا كوسو لبا أمير المؤمنين هو يا أقبل وحو لي هدو بان كأقبل يسوب هدو بان أخرين دوناي وار دقاق ووار صعدي نينكي با مربا كوسو نقونايا وحو لي هدو بان أخرين هيددجيني حدود دي مصر مركو كجود بي أيو كوري ما نينكي فرنتا كسيدي عمر markaasuu yimi kaasuu warqadii akhri waxa warqada ku qoran Amr ibn al-Aas hadad xuduudda dalka Masar dhaaftayna hore u soco hadana dhaafina muslimiinta halu goynina ka soo noqo meesha marka uu fahmay wuxuu ahaa Amr ibn al-Aas daahiya min duhaati al-arab nin aad iyo aad u maskax badan buu ahaa ilaahay raalaha ka ahaade markuu Masar uu tagay waxa weeyaan imise bilood bay ku qaadatay inuu ku qabsado Masar oo uu ku galo Alexandria masanada mabila intay ku qaadatay waxa ku qaadatay 4 bilood oo kaliya inuu Alexandria uu tago caasimada dalka Masar xilliga looga talinayay la hawla wala quwwata illa billah dabadana uu aasaasay magaalada la yiraahdo Fustat wa arin ajaayiba sidee ayay ku jabtay dawladdaas Masar oo ciidankeedu uu ahaa xilligaas ragga dagaalamaya ay 1 milyan ay gaadhayeen ciidamada markii uu galayay Amr ibn al-Aas radiyallahu anhu warqada uu akhriyay wuxuu Umar ibn Khattab uu ka dalbaday radiyallahu anhu wuxuu ka dalbaday ciidan madada oo dheeraada 1 milyan buu la dagaalamaya subhanallah la ilaha illa allah Umar ibn Khattab ciidamadiisu dunida dhan bay kala joogan marka halkan Roomaankii kale waa kuwan ilaa iyo Suuriya iyo waa laga saaray aagaas oo dhan Falastiin waa la qabsaday Qudus waa la qabsaday Urdun waa la qabsaday subhanallah ciidamadiisu xagan kale Farisiyiintii waa la eriyaday Nahawand baaba dhacday dagaalkii ilaa Hindiya ciidamadiisu joogan ciidamo magaalada Madiina ma joogan waa la kala tagay mid walba faranta hore uu ka dagaalamaya wuxuu Umar soo ururiyay qofkii maaragtay wixii jihaadka diidi jiray iyo wixii waxbuu soo ururiyay ciidamo ama reer baadiye aha subhanallah la ilaha illa allah deetana warqad buu soo diray wuxuu waxaan ku soo diray 8,000 oo ciidan baan ku soo diray Amr ibn al-Aas waxa uu yimi ciidankii baa uu yimi tiradoodu waxay noqotay 4,000 8,000 ba maaha subhanallah warqadii buu ku celiyay wuxuu dhayaa sayidna Umar ya amir al-mu'minin 8,000 baan ku soo diray baad tiri meeshana waxa maraya 4,000 kalime wuu soo celiyay warqad kale uu soo diray Umar ibn Khattab wuxuu yiri 4,000 ku soo diray waxa ku jira 4 nin oo nin walba uu u dhigmo kunnin uu dhigmo 1000 rajul kunnin buu dhigmo la ilaha illa allah wa sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ibn Abi Maslama wa Badri reer ansaareeda Ubaada ibn Samit al-Miqdad ibn al-Aswad الزبير بن العوام أفر صحابي بدريين أو نينكي كستاو أدقم 1000 رجل كن أدقم بانكو صدر بيري لا إله إلا الله لا إله إلا الله ساس أيوع مصرنا أو كوكب صدي صحابي قال له يقانا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه هذا هو حيسويدين له أو ما رأيتي دتك أي إسويدينيان والدولة عيدا بين لاده dhaqaalay leedahay
cid kasta markii hore waatan iska celin jirtay waa maxay waxaan la iska gelayo oo daqiiqad gudaheed markiiba 2-3 bilood bal iminka qiyaas dowlad yar oo ku taala qaaradda Afrika Madagascar ba ka soo qaan oo dabadeedna 3 sano ama 2 sano gudahooda ku qabsata labada dowladood ee maanta sheegtay inay yihiin super power Washington na qabsatay Moscow na qabsata 2 sano ama 3 sano gudahooda maxaa dhacay baa la isweydiinaya Soomaaliya Mareykanku dhihi jiray hubka ugu casrisan bana haysana soo nagi ahayn super power ka maxaa ugu dhacay nafsa shay saasoo kale in la isu weydiiyo weey dowladahani waxaan dowladaha adduunka ugu waaweynaa ee kumanaan sanadood ka soo talinayay maxaa ku dhacay dad badan waxay u maleynayaan inay arintu tahay ducadii rasuulka iyo saxaabadii rasuulka iyo dad barakaysan bay ahaayeen oo dad khayr badan bay ahaayeen oo dad wanaagsan bay ahaayeen oo waa saxaabadii rasuulka weey karaamadii iyo mucjisadii la socon jirtay saxaabada nabiga weeyaan ayay dad badan u maleynayaan xaqiiqduna taa way ka duwan tahay isagoo saxaabigu sharaf u leeyahay ayuu haddana muslimiinta kale taa uu saxaabigu sameeyay mid lamid ah bay sameyn karaan sharafta iyo guusha uu soo hooyay mid lamid ah bay soo hooyin karaan isagoo saxaabi nabi baan ahayn tusaalan ku soo qaadaya sanadku markuu ahaa 290 hijriyada markuu maray 290 hijriyada markuu maray Tariq ibn Ziyad nin kale Tariq ibn Ziyad waxa weey waa nin ka soo jeeda qabiilka barbari weey arab xitaa ma waa nin barbari ninka barbariga ee qabiilka barbariyiinta waqooyiga Afrika degi jiray ayaa wuxuu ku duulay Andalus oo ah Spain iyo Portugal Portugiiska ayuu ku duulay waanu qabsaday isagu manu ahayn saxaabi nin carbeedna muu ahayn nin goor hore islaamay saabiqiinta saabiqiinta hore kamid ahana muu ahayn waa nin muslima oo barbari qabiilkiisu barbari weeye ayaa ku duulay Andalus oo qabsaday sanadku markuu ahaa 114 hijriyada muslimiintii intay ka gudbeen Andalus oo ka koobnayd Spain iyo Portugiis ayay waxay galeen xuduudda Faransiiska koonfurta Faransiiska ayay qabsadeen Paris oo ah caasimadii Faransiiska ayay saasu dul istaageen xuduudeed Abdurrahman al-Ghafiqi rahmatullahi alayhi ninka la dhaca Abdurrahman al-Ghafiqi isagoo ciidan yar oo dhowr kuna wata 3,000 lagu qiyaasay 2,400 2,600 ciidan aad u yar wata ayuu ka gudbay wabiyada faraha badan leh ee maaragtay ku yaala France ku yaal France wuxuu iska celin kari laayahay nimankan reer baadiyaha ah ama miyiga ka yimi ayuu iska celin kari laayay wuu galay ilaa iyo uu gaadhay markaa waxa weeyaan Toulouse uu gaadhay oo uu qabsaday magaalooyinkan imika taqaanaan Lyon iyo Bordeaux magaalooyinkaas oo dhan ay qabsadeen magaalooyin islaam ay ahaayeen oo uu gaadhay maaragtay 18 kilomitir uu istaagay maaragtay caasimadda Faransiiska Paris uu isu taagay subhanallah oo khaliifkii uu dib u soo celiyay oo markii dambana uu dhacday dagaalkii loo yaqaan Palaatu Shuhada halka ay uu ku nafwaayay oo uu ku shahiiday ninkii loo yaqaan Abdurrahman al-Ghafiqi fikirkiisu muxuu ahaa hadaba Abdurrahman al-Ghafiqi wuxuu ahaa fikirkiisu muslimiintu sidaan ognahay waxay qabsadeen xagga iyo bari way u fudeen oo waxay gaadheen Indian ayay gaadheen oo waxay gaadheen China ayay gaadheen xaggan galbeedka way u soo fideen oo waxa weeyaan Yurub qaybo kamid ah bay soo gaadheen waxay furan kari waayeen ku adkaatay Istanbul oo ahayd maaragtay Constantinople baa loo yaqaan waagii hore oo darbiye aad u dhaadheer lahayd waxayna muslimiinta ay ku adkayd ilaa 600 sanadood oo ay muslimku isku dayeen qabsadaan Istanbul oo ay suurto gali weydeen wuxuu rabay markaa ninka Abdurrahman al-Ghafiqi arrimihiisa cajiibka ama dhacdooyinkiisa la yaab kale inuu halka Andalus intuu soo qabsado Spain iyo Portugiis Faransiiska uu ka soo gudbo dabadeedna uu xagga koonaha kale ee maaragtay uu dhulka Yurub oo dhan intuu soo maro Yurub ta galbeed oo dhan inuu soo maro inuu halkan kaga yimaado Turkiga uu ka qabsado markaa Istanbul uu ka qabsado waa arrin cajaayib oo la yaab leh ilaa markii dambe khaliifkii Umayyiinta uu ka joojiyay oo uu yiri waxa muslimiinta khatar gelinaysa waxa ina tusinaysaa arrimahaas in ay jirto sir ku duugan sababta
ay dowladahani u burburayaan ee ay u jabayaan iyo sababta ay muslimiintu u guuleysanayso goob kasta oo ay tagto waaya sababta haddaynu tilmaamno markuu u horeysa dowladahan xoogga sheegtay xoogga isbadee super powerka ah dhibaatooyin baa haysta dhibaatooyinka haysta waxa weeye horta waa wadamo corrupted waa wadamo musuqmaasuqa waa wadamo aanay ka jirin cadaalad oo ay ka jirto dulmi iyo xaq darro iyo garsoor xumo ay ka jirto wey waa wadamo ay haysato material waa wax maadi ah xubbu dunya adduunya jacayl adduunya bay raadinayaan ay ku ordayaan aakhiradan kama leh adduunya yaqaanaan maxaan cunaa maxaan cabbaa maxaan fuulaa maxaan markaa halkan u hoyda waa intaa yaan maamulaa cilmigoodu waa maadi waa material waa shay maadi oo la taabanayo waa ummad aan akhlaaq lahayn oo aan markaa waxa weeyaan dhaqan wanaagsan oo suuban lahayn waa ummad aan kala dambaynaya tartiib bulsho ama qoys ama nidaam u yaalla aanu jirin oo marka goobta dagaalka la keenayo isagoo la qasbaya ayaa la keenaya مثلا هذين تصاروا سوق قادنو معركة دي الدجال كيلو يعني ذات السلاسل والدجال وخالد بن وليد مركي ويرري كونفورت العراق أي واحد عدد معركة ده أما الدجال كله ذات السلاسل والله بقول أو كن أي فارسيين تجوبت الدجال هاي كان سي أي خالد بن وليد ولا الدجال لمان سديت كن أو كم إذا عيدا كا سلسلة ذاك وحنا waxa looga baqayaa inay wada firdhadaan oo ay yaacaan dabadeedna farisiyiinta aqli xumadooda 80 kun waxay ku xidheen silsilado seefiyo hubna way u dhibana waxay dhaheen dagaalama waxa la isku xidhayaa 100 qof baa la isku xidhayaa mid walba silsilada lugta ka kale loogu xidhaya waxana la leeyahay dagaalama 80 kun ba Khalid ibn Walid ba madaxa ka gooyay iyaga oo silsiladahooda ku jira gabigoodiiba marka waa maxay dadkan aad arkaysid iyo dawladahan aad arkaysid waa meel aan cadaalad aan ka jirin oo meel dulmigu ku badan yahay waa meel boobka iyo isdhacu uu ku badan yahay waa meel adduunyo ah oo wax maadiye un la raadinayo waa meel akhlaaqdii iyo dhaqankii wanaagsanaa uu ku yariyahay waaye arintaas waa arrimaha asbaabta keenta inay dawladi burburto waana asbaabta keentay in dawladaha waaweyn ee super powerka sheeganayeen inay burburaan laakiin taasi ma aha shayga kaliya burburiyay laana hadaynu u fiirsana xaqiiqda caalamka aynu maanta ku noolnahay reer Yurubka iyadaba arrimahaasi way ka jiraan waa wada materialism way waa wada maadi wax maadiyun buu ka shaqeynaya akhlaaq male oo dhaqan wanaagsan male oo waxa weeyaan gabadha la iibinaya oo lacagtaadaas iyo maalkaagaas waxa rabto ku iibsan kartaa saadantad u dhaqmi kartaa wuxuu lagu leeyahay xurriyad baad haysataa waxa doonaysid sameynaysid subhanallah la ilaha illa allah haddaba xagga akhlaaqda iyo ethiga iyo moraalka way u dunsan yihiin iminka wadamada reer galbeedka laakiin haddana super power bay yihiin sababtoo ah taasi maaha sababta koowaad sababta kaliya ee markaa waxa weeyaan ay dawladdu ku burburto waa mid ka mid ah asbaabta keenta asbaabaha kale keenaya waxa weeye waa khilaaf iyo challenge taxaddiyaad dawladaha hor yaalla oo tusaalahaan waxaan u soo qaadanaynaa farisiyiintii Roomaanku marka horeba colol bay ahaayeen oo dawladda Roomaanku waxay iska ilaalinaysaa farisiyiinta soo quraanka ba Ilaahay noogu sheegin suuratu Rum isagoo Roomaanka kaga hadlay way Rum waa Roomaanka way غلبت الروم bu Ilaahay yiri reer Roomaankii Soomaalidan arki wala jabiyay غلبت الروم alif lam mim غلبت الروم reer Rum wala jabiyay markaas hadaba Ilaahay wuxuu yiri wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun jabkooda kadib iyaguna way guuleysan doonaan yaa jabiyay marka farisiyiintii ayaa duulaan ku soo qaaday Roomaanka dabadeedna dhulka Shaam oo dhan bay ka qabsadeen Suuriya iyo Falastiin iyo Urdun iyo aagaas oo dhan bay ka qabsadeen ay ka wada qabsadeen marka Ilaahay wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala isagoo nabigiisa quraanka ku soo dejinaya reer Rum wad aragtay waa la jabiyay laakiin muddo fi bid'i siniin muddo 10 sano ka yar ayuu Roomaanku soo laba kacleynaya oo meelihii laga qabsado oo dhan uu dib u qabsan doona taasina waa mid ina tusinaysa mucjisooyinka quraanka inuu ka sii waramay wax mustaqbalka dhacaya wayna dhacday
sidii uu qur-aanku u sheegayna u dhacday. marka waxaan halkaa ka fahmaynaa in ay cadaawad iyo colnimo ay ka jirto mar walba dowladahan ay jirto dowlad kaloo challenge garanaysa. marka farisiyiinta waxaa cadow ku ah roomaanka waxaa cadow ku ah farisiyiinta, dhexdooda dulmi iyo gardariya balaaya ka jirta. saa awgeed markii arrintaasi ay jirto waxaa hubaala inay dowladdaasi burburayso oo ay dumayso. keliya waxaa loo baahan yahay cidda muwaajahaysa ama kasoo horjeedaa waa inay yihiin iyaguna kuwo moraal ahaan dhisan oo ka duwan, moraal ahaan dhisan oo waxa weeyaan iyagu aan khilaaf dhexdooda aanu oolin. laba, arrinta kale muhiimka ah ee looga baahan yahay waxa weeye waa inay xoog iyo awood ay leeyihiin. waa inay xoog iyo awood leeyihiin. haddaanad xoog iyo awood lahayn ama kartidii aad ku fulin lahayd arrimahaaga aanad haysanin, waxa weeyaan wax badan ayaa maaragtay kaa kala oolaya. arrimahaasi asbaabtaasi waxay ka mid yihiin waxyaalihii dumiyey dowladaha. haddaba waxaynu isweydiinaynaa taasi waa taariikhdii ifaysay ee islaamka. islaamku markuu bilaabmayey walaalayaal halkuu ka bilaabmay? hal shaksi baa ilaahay ka bilaabay islaamka, waa rasuulkeena maxamed sala allahu calayhi wasalam. isagoo god ku jira ayaa waxyiga u yimi. marka islaamku xaqiiqda markaynu sheegno god buu ka bilaabmay. haddaba fiirso, god ayuu ka bilaabmay. ghaarulxiraa la dhahdo uu islaamku ka bilaabmay. hal shaksi ama hal qof, hal ruux, hal ibni aadama baanu ka bilaabmay. marka caqliga insaanka markaan kugu dhaho islaamku wuxuu ka bilaabmay hal qof, wuxuu ka bilaabmay arlada uu ka bilaabmayna god bay ahayd. waa waxyaalaha qaraa'ibkii cajaa'ibkaa weeyaan. islaamkaa ka bilaabmay halka qof, dhulna uga bilaabmay, god uga bilaabmay, dunida siduu u qabsada u fiirso. waxbaa jira marka 13 sanadood buu rasuulku uu salawaatullaahi wasalaamu calayh oo magaalada maka ku edbinayay dadka islaamka oo uu barayay iimaanka loo kordhinay. al-iimaan, iimaankii baa la barayay, tawxiidkii baa la barayay, caqiidadii baa la barayay, samirkii iyo adkaysigii baa la barayay, dhaqanka iyo akhlaaqda wanaagsan baa la barayay. axkaamtu badankoodu 95% axkaamta diinta islaamku waxay soo degeen markii madiina uu nabigu u hijrooday salawaatullaahi wasalaamu calayh. marka waxay dhahaan culimadu 13 sanadood waxay ahayd tarbiyad la tarbiyadeynayay asxaabta rasuulka ee saabiqiinta loo yaqaano. markii uu madiina tagay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa bilaabantay axkaamtii kale in la soo dejiyo. zakadii baa la soo dejiyo, oo soomkii bisha ramadaan baa la soo dejiyo, oo xajkii inuu waajib yahay baa la soo dejiyo, oo jihaadkii baa la soo dejiyo. axkaamta oo dhan markaasaa ilaahay uu soo dejiyey tabaaraka wa tacaala. waxayna noqotay markii madiine loo guuray ee madiine loo hijrooday in aasaaskii la bilaabo dowladnimada islaamka ama xadaarada iyo ilbaxnimada islaamka. waayo 13 sano hore waxay ahaayeen tarbiyad bay ahaayeen, iimaanka qofka sare loogu qaaday. laakiin markuu nabigu uu hijrooday waxa uu ka bilaabay sayidina cumar ibn khataab taariikhda hijriga ee aynu maanta naqaano wuxuu ka bilaabay maalintuu rasuulku soo hijrooday. xikmad baana ku jirta uu sayid cumar radiyallahu canhu uu uga bilaabay arrintaa. kaalandarka muslimiinta looga bilaabay, taariikhda muslimiinta hijrida maxaa looga bilaabay? leanna waa markii u horeysay ee muslimiintu ay yeesheen dowlad ama ay yeesheen meel aasaasa oo bays ah iyo meel ay ka duulaan iyo meel loogu yimaado. waa tuulo, waa magaalo yar oo yathrib la dhaho, markii dambena madiine loo bixiyey. subxaan allah. markay dowladdaasi aasaasantay gaaladii qureysheed umay cuntamin. khatar bay dareemeen inay dowladda yar ee iminka aasaasmaysa unkamaysa, khatar bay ka dareemeen inay khatarila soo wajahday. dagaal bay soo qaadeen iyadoo kufaaru quraysh oo dhan wada socdo, odayaashoodii iyo markaa ugaasyadoodii iyo salaadiintoodii iyo cuqaashoodii iyo malaaqyadoodii iyo wadaadadoodii iyo kuwii dhaqaalaha u hayay, kulligood intii madaxdii inliidkii u sarreeyey oo dhan ayaa goobta yimi. dagaal baa dhacay sanadkii 2 hijriyada loo yaqaano ghaswatil badr al-kubra, dagaalkii badr ee maaragtay weynaa. dagaalka badr tirada dadka horta ku dhimatay iyo dadka markaa waxa weeyaan lagu qafaashay waa tiro aad u yar marka loo eego
dagaaladii hore ee adduunka ka dhici jiray waagii hore iyo kuwii mar dambe ka dhacay intaba marka loo eego 70 qof baa gaalo laga dilay 70na waa laga dhaawacay marka la eegayo xagga tirada waa aad ba u yartay waayo waxaan idin sheegayaa goobaha qaar ay Soomaalidu markay qabyaalada isu dilayso ayaa kumanaan qof isku dileen 70 waa tiro aad u yar xaqiiqatan haddana iyadoo dagaalkaasi muddo yaro kooban uu socday 70 nin oo kaliya ay ku dhinteen 70 ninna la qafaashay ayaa Ilaahay wuxuu leeyahay waa dagaalkii ugu weynaa ee islaamka abid ghazwatu badr al-kubra wa badarti weynad waa dagaalkii ugu wada weynaa ee islaam uu galaba إلهي وحو قرآن كيسا وكتو المامي تبارك وتعالى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ما ننتي فرقانك ما ننتي حقا يباطلك لكلا سوعي ما ننتي أي كلمان لبضي عل مسلمة يعل قال أي كلمان ودقالك أقوين إيه إسلامك أقوين حتى أنا وقت يقول سعودي يوحي لذا ماركتي كدالتي وحاضي يربيه وايو waa maxay sababta muxuu noqday dagaalka Badr dagaalka ugu weyn ee islaamka jawaabta ku siinaya walaal sababtu waxa weeye walaalayaal dagaalka Badr dadka ku dhintay baynu eegaynaa dawlad dhan oo ahayd dawladii reer Maka iyo qabiil dhan ayaa madaxdoodii mid aanu ka harin reer Quraysheed bal qiyaas reer Quraysheed madaxdoodii oo dhan saddex nin ayaan dagaalka Badr ka qayb galin saddexdan nin wuxuu ahaa Walid ibn Mughira isaguna dhaawac buu dhintay isla markiiba waa dhintay dhaawac buu dhintay wuxuu ahaa ninka la yiraahdo Abu Lahab kamuu qayb galin dagaalka markii loo sheegay in Badr muslimiintii ay gacan sareeyeen oo gaaladii la jabiyay cadha awgeed ayaa balaayo iyo cudur iyo wax ku dhacay ma naqaane isna wuu dhintay saddex maalmood kadib dagaalkii Badr buu dhintay qofka kaliya soo haray madaxdii reer Quraysh Abu Sufyan buu ahaa oo isagu safarkii waday oo isagu baxsaday ninka kaliya baa ka soo haray laakiin madaxdii kale oo dhawaadintay Abu Jahl waa lagu dilay goobta dagaalka من عتبة iyo Shayba iyo Walid waxa lagu dilay waxba Abu al-Bukhtari ragaas oo dhan waxa lagu dilay goobtii dagaalka subhanallah madaxdii reer Quraysheed oo dhan dagaalkii Badr baa lagu leeyay Umayya ibn Khalaf iyo subhanallah la ilaaha illa Allah marka waa dawlad baarlamaankii iyo wasaradii iyo kuwa golaha guurtida ee sanadka ahaa wixiiba hal mar laga iyo madaxweynayaashoodii wixiiba hal mar gacanta la mariyay saa awgeed baa Ilaahay wuxuu tilmaamay yawm al-furqan yawm altaqa al-jam'an maalintii xaq iyo baadilka Ilaahay kala soocay tabaaraka wa taala waa maalinta Badr sanadkii ku xigay Uhud baa dhacay muslimiinta waa laga reeyay si uu Ilaahay u sheego oo u baro in sababta ay Badr u guuleysteen ay ahayd daacadii Ilaahay iyo rasuulkiisa ay adeeceen Uhudna markay Ilaahay iyo rasuulkiisa adeeci waayeen ay jabeen Ahzaab baa ku xigay oo muslimiinta la hareereeyay oo sanadkii shanaad hijriyada dhacay oo 10,000 oo ciidan ah oo carabtii Quraysheed iyo Qadafaan ah ay maaragtay isku weer iyo maaragtay ay ka qabteen soo waagaareen oo ay magaalada Madiina ay markaa Haydar ay ka qabteen iyadoo taas lagu jiro ayaa Yahuudi reer Bani Quraydana ay ballantii ay ka baxday ilaa iyo ay muslimiinta Ilaahay uu ku tilmaamay in wadnahoodu uu halkan uu ka boodboodayo cabsida jirta awgeed oo saxaabadii ama dadkii muslimiinta ahaa ay kala yaaceen oo dad badan oo munaafiqiin ah ay markaa baxsadeen intii nabiga u yimaadaan ay dhahayeen inna buyutana awra wama hiya bi'awra in yuriduna illa firara guryaha iyaga dhibaato ka jirto gabadhii baa naga dhalayso mid walba cudur daar buu samaystay Ilaahayna uu lahaa awro iyo dhibaato ka jirta ma joogtee in yuriduna illa firara inay baxsadaan oo cararaan bay rabaan nabiga waxa ku soo haray 300 nin muslimiintii intii kale wixii muslim sheeganayay waa la waayay subhanallah la ilaaha illa Allah waayo wuxuu Ilaahay u yiri tabaaraka wa ta'ala إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل وحي لهي حقا دوشا سرويدين كيما دوا طبان كنا عيدا
halkan hoosena yahuuddii waa tanoo ballantii bay ka jabisay, ballantii ayay jabisay, muslimiintiina weerar bay kusoo qaad ilaa markii dambe ilaahay tabaaraka wa tacaala uu soo diray junuud iyo askar uu soo diray rabbaaniya oo ilaahay dabayla uu soo diray oo malaa'ig ilaahay soo diray oo ilaahay ka badbaadiyey dhibtii reer madiina iyo muslimiintii deganayd. subxaan allah. nebiguna markii dambe waa kii ka aargoostay yahuuddii ballan burisay ee reer bani qurayda ee gowracay raggoodii faldembiyeedka ka dambeeyey salawaatullaahi wasalaamu calayh. way soo socotay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam sanadkii 8aad ee hijriyada wuxuu furtay magaalada maka oo ahayd hamiga ugu weyn ee nebigu uu lahaa oo salawaatullaahi wasalaamu calayh siduu magaalada maka oo ah magaaladii aynu u jihaysanan iyo qibladii iyo kacbadii iyo cibaadadii iyo xajkii iyo cumradii oo gaal haysto. guul aad iyo aad u weyn bay ahayd oo ilaahay inooga warramay innaa fataxnaa laka fatxan mubiina. ilaahay baa kuu furayba tabaaraka wa tacaala. sanadkii 9aad ee hijriyada carabtii dunida joogtay oo dhan ayaa islaamtay oo mid walba afwaajan ayay u imanayeen iyagoo kooxa kooxa ah ayay u imanayeen way islaamayeen. nebiguna boqoradii gaaleed oo dhan waraaquu u diray, kii roomaanka iyo kii farisiyiinta iyo kii markaa joogay baxrayn iyo kii joogay cumaan iyo kii joogay masar, mid walba warqad buu diray salawaatullaahi wasalaamu calayh si uu inoo tusiyo in diintiisu ay tahay diin caalamiya oo aan ahayn diin qabiil ama koox ama qoys ee ay tahay caalami internationala oo cid walba oo jinsi walba ah ilaahay uu soo diray tabaaraka wa tacaala. sanadkii 10aad ee hijriyada nebigu dagaal buu galay la yidhahdo qaswatu tabuuk oo uu markii u horeysay ay dowladda roomaanka uu nebigu weerar uu ku qaado. muddo bil ah buu nebigu halkaa fadhiyey. gaaladii roomaanku way iman waayeen waayo ninkii la dhihi jiray heraqal nin maskax badan buu ah. wuu u tegay carabta gaaladii roomaanku la hadlay, wuu la taliyey, wuxuu yihi ninkani waa nebi, calaamadihii iyo sifooyinkii aynu ku arki jirnay kitaabkana waa wataa, aan idinla taliya aynu raacno, waynu guulaysanayna haddaynu raacnay. way diideen roomaankii madaxdoodii. wuxuu ihi haddaba taladeeda labaad qaata, ha la dagaalamina oo ha ka hor imanina, haddaad ka hor tagtaan wuu idin gaagaaminaya gebigiinaba, madaxiinu guraya, kama adkaan kartaan, waa rasuul. dabadeedna waxay dhaheen taa labaad baanu qaadanayna, dagaal annagu iskaga hor iman mayno maxamed. sidaa awgeed baa nebigu dagaalkii tabuuk markii uu tegey shahran kaamil, bil dhan oo dhammaystiran buu sugayay gaaladii, ilaa dunida oo dhan ay ogaatay inay roomaankii dowladda isbidayay 200,000 soo diray. u fiirso, dagaalkii mu'ta baa ka horreeyey oo nebiga calayhi salaatu wasalaam 3,000 ciidan u diray oo ay hogaaminayaan 3 saxaabi ee zayd ibn xaaritha iyo jacfar ibn abi aalib iyo cabdillaahi ibn rawax. 3 saxaabiye ku shahiiday dagaalka. imise ciidana ka hor yimi, waxaa ka hor yimi 200,000 oo roomaana iyo 100,000 oo carabtii la socotay roomaanka. waa 200,000. marka tiro yaraan kama cabanayaan, tiro yaraan ma jirto. laakiin rasuulku markii uu yimi way iman waayeen, way ku dhici waayeen inay yimaadaan. markuu bil joogay, bil markii horena uu sii socday, bil halkaa uu fadhiyey, bil kalena uu soo socday salawaatullaahi wasalaamu calayh, ayaa caalamka iyo dunida waxa u cadaatay inay roomaanku ka baqeen oo ay ka cabsadeen rasuulka Muhammad salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. sanadkii ku xigay 11aadna rasuulku waa buu geeriyooday salawaatullaahi wasalaamu calayh. marka waxaynu xisaabinaynaa dowladda islaamku goormay bilaabantay. waxay bilaabantay 1dii bishii koowaad aan ka soo qaadno sanadkii 1aad ee hijriyada. sanadkii 1aad ee hijriyada 10 markay maraysay, macnaha 10 sano markay maraysay, muslimiintu waxay weerar ku qaadayeen dowladda adduunkii ugu weynayd, dowladda labaad ee adduunka ugu weynayd roomaanka. waa 10 year, waa muddo 10 sanadood gudahooda. subxaana alkhaaliq, laa ilaaha ila allah.